Tonight, detectives have recovered a motor vehicle believed to have been used in the events to and after the murder of 3 family members who went missing in East Leigh. Xogo dheeraada ayaa ka soo baxaya dilkii loo geystay hooyada iyo labada gabdhood ee ay mid dhashay midna ay habaryarta u ahayd, iyadoo wararka ay sheegayaan in hadda qaybta dambi baarista ee dalkaasi Kenya DCI-da loo yaqaano ay gacanta ku soo dhigeen gaarigii lagu qaaday gabdhahaasi iyo waliba darawalkii waday, sidoo kalena la soo qabtay oo la hayo mid ka mid ah gabdhihii lala afduubay gabadhaasi oo la sheegay in ay isku meel ku xirnaayeen, hase ahaatee iyada laga qaatay madax furasho. Fadlan daawaday haddii aad nagu cusub tahay oo aad ku cusub tahay barahayaga bulshada nagu soo biir channelka, subscribe noo saar, page-ka Facebook aan ku leenahayna noo follow garee. Mahadsanidin. Ciidamada dambi baarista ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay gacanta ay ku soo dhigeen gaari la rumaysan yahay in loo adeegsaday afduubkii iyo dilkii 3 gabdhood ee isku qoyska ka tirsanaa lagu dilay magaalada Nairobi ee ku noolaa xaafadda Eastleigh. Gaarigan oo la rumaysan yahay in loo adeegsaday afduubka ayaa laga soo saaray suuq ka mid ah suuqyada ku yaala Kamankunji ee magaalada Nairobi. Baarayaasha dilka ee xarunta CID-da ayaa waxa ay su'aalo weydiinayaan ayaa la yidhi haweeney asalkeedu yahay Soomaali, taas oo bixisay macluumaad muhiim ah. Haweeneydan ayaa waxa ay ku eedeysan tahay in lala afduubtay 3 qof ee la dilay, waa hooyada, gabadheeda iyo waliba gabadha kale ee iyadana qoyska ka mid ka ahayd, laguna hayay isku qol oo ay ku xirnaayeen ka hor inta aan la dilin. Haweeneyda ayaa waxay sheegtay in afduubayaasha ay ka dalbadeen lacag madax furasho ah si ay u sii daayaan, waxayna qoyskeeda gabadha hadda nool u suura gashay in ay soo ururiyaan lacag dhan 1 milyan oo Kenya shilin ah, waa sida ay sheegtay, taasi oo lagu shubay bangi xisaabeed laga leeyahay dalka Ethiopia. Gabadhan raadraaceedu waa mid ka mid ah tilmaamaha muhiimka ah ee lagu baarayo kiiska dilka ah ee qarsoodiga ahaa ee ka dhacay magaalada Nairobi, waxayna booliisku baarayaan in gabadhan laftigeedu ay gacan ka geysatay arrinta dilka 3 dumarka ah iyo in iyada qudheedu ay dhibana tahay. Baarayaasha ayaa sidoo kale falanqeyn ku sameeyay telefoonada gacanta ee dhibanayaasha iyaga oo soo bandhigay habeenkii la afduubayay telefoonadooda iyo waliba muuqaalka CCTV kaamirada ay duubtay. Waxaa kale oo soo baxaya in dilkan ay ku lug leedahay haweeney degan dalka Ingiriiska oo la sheegayo haweeneyda la dilay iyada iyo ilmaheedaba oo isla qabay hal nin oo isaguna hadda ku nool dalkaasi Ingiriiska. Waa sida xogaha hordhaca ay sheegayaan, hase ahaatee ma aha xog sir sax ah oo rasmi ah arrintaasi loo sii daayay. Baarayaashu waxay falanqeynayaan oo ay falanqeyn ku sameeyeen raadraac iyo waliba dad badan oo la tuhunsan yahay in ay arrintani ku lug leeyihiin oo soo baxaysa. Arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa ayaa la yidhi oo soo baxday in Waris Daa'uud ninkeedu uu ku sugan yahay dalka boqortooyada Ingiriiska oo la nool yahay xaas labaad. Booliiska ayaa baaraya haweeneyda labaad oo dhowaan ku sugnay dalka Kenya in ay wax ka og tahay dilka iyo waliba dhibaatada ku dhacday qoyskan, taas oo shaki keentay in haweeneydaasi sida ay baarayaashu sheegayaan ay qayb ka tahay dilka. Kooxda baarayaasha ayaa waxaa Khamiista maanta ay dib ugu noqdeen 2 goobood oo ka mid ah goobihii lagu tuuray dadka la dilay meydkooda, sida xaafadda Parklands iyo waliba degmada Machakos, si ay dib ugu qiimeeyaan dhacdooyinka horseeday in dilkan uu dhaco. Dhinaca kale, ganacsatada xaafadda Eastleigh ayaa ka dhidhisay dilkan loo geystay haweeneydan Soomaaliyeed iyo waliba ilmaheeda iyaga oo xiray goobahooda ganacsiga, iyaga oo xusay inay muujinayaan murugada iyo waliba dhibaatada qoyskaasi loo geystay. Arrintan wixii xoga ah ee ka soo kordha waxaa kala socon doontaan Rasmi Radio. Fadlan daawaday haddii aad nagu cusub tahay oo aad ku cusub tahay barahayaga bulshada nagu soo biir channelka, subscribe noo saar, page-ka Facebook aan ku leenahayna noo follow garee. Mahadsanidin.